iyadoo uu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa cabsi xoogan laga qabaa in hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu qaado tallaabadii ugu dambeysay ee soo afjari karta cilaaqaadka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed. Laftagareen oo horeyba uga caraysnaa magacaabistii xukuumadda iyo in lagu soo daray xubno ay ishayeen iyo sida ay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga u beegsanayso ayaa si weyn la sheegay inay usii kala fogaadeen dowladda federaalka uuna xaqiiqsaday dagaal siyaasadeedka lagu hayo intii lagu guda jiray kulankii lagu ansixinayay xubnaha golaha wasiirada, halkaasi oo ay isku dayeen inay hoolka baarlamanka fawdo ka sameeyaan xubno xildhibaano ah oo ka agdhow madaxweynaha Koonfur Galbeed, kuwaasi oo kamid ahaa shakhsiyaadka uu ku kalsoon yahay ee ka tirsan golaha shacabka. xildhibaanada isku dayay inay kulanka hor istaagaan si loo baajiyo ansixinta golaha wasiirada ayaa waxaa kamid ahaa xildhibaan Xasan Cabdinuur oo horey ugu tartamay gudoomiyaha golaha shacabka si weyn ula loolamay gudoomiyaha iminka ee Sheekh Aadan Madoobe. Xasan Cabdinuur oo ay iska agdhow yihiin Laftagareen ayaa doonayay in la baajiyo ansixinta golaha wasiirada oo uu ku jiro Sheekh Mukhtaar Roobo, balse kuma aanu guuleysan, waxaana ugu dambeyntii kulanka lagu meelmariyay xubnihii golaha wasiirada ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa qorsheynaya in uu xubnihii fawdada ka sameeyay kulanka oo ay ku jiraan kuwa gudoomiyaha laftiisa weerar ku qaaday la mariyo anshaxa isla markaana laga ganaaxo ilaa dhowr kulan. tallaabooyinkan ayaa biirinaya kuwo horey loogu beegsanayay maamulka Koonfur Galbeed si hoos loogu dhigo awoodda madaxweyne Laftagareen oo ka caraysan xiriirka dowladda federaalka kala dhexeeya. Laftagareen ayaa carada uu ka qaaday xukuumaddii uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxay ku qasabtay inuu maciin bido Itoobiya. wararka iminka ka imaanaya Baydhabo waxay sheegayaan in maamulka Koonfur Galbeed uu ka fakarayo haddii ay xukuumadda Soomaaliya sii wado daandaansiga ay ku hayso dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in uu maamulkaasi xiriirka si toos ah ugu jiro dowladda Soomaaliya. xiriir u jarista dowladda federaalka ee dhinaca maamul goboleedyada ka timaada waxaa horey caan ugu ahaa maamulka Puntland oo muddo xileedkii koowaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer ku dhawaaqay inuu joojiyay cilaaqaadkii uu la lahaa dowladda federaalka si toosana xiriirka ugu jiray dowladii xilligaasi jirtay. hase yeeshee Laftagareen oo hadda si weyn ay isku hayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa laga yaabaa in maalmaha soo socda uu ka soo yeero dhawaaq aan u wanaagsanayn cilaaqaadka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed. in sidoo kale uu Laftagareen xiriirka u jiro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda uu hogaaminayo waxa uu sacabatumaya oo si weyn ugu qalqaalinaya mas'uuliyiintii horey dalka u soo xukumayay ee uu ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo siyaasiyiinta ka agdhow. saacadihii la soo dhaafay ayaa la sheegay in dhowr kulan oo dhinaca taleefanka ah ay dhex mareen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo xubno ka tirsanaa nidaamkii hore ee madaxweyne Farmaajo ee dalka soo xukumayay 5 sano ee la soo dhaafay, waxaana ay kula taliyeen in haddii la joojin waayo cadaadiska ay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ku hayso Koonfur Galbeed in si toos ah madaxweyne Laftagareen u qaato go'aan lagu hakinayo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Laftagareen wuxuu aaminsan yahay in kadib meelmarintii golaha wasiirada iyo u hanjabidda xildhibaanada isaga taabacsanaa ee kulankii ugu dambeeyay ee baarlamanka dartiis la doonayo in loo ganaaxo inay ku wajahan tahay sidii isaga siyaasadiisa loo go'doomin lahaa. wuxuuse dareemayaa inuu kusoo fool leeyahay howlgal ballaaran oo isaga meesha looga saarayo ka oo ay gacan ka geysanayaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madoobe, wasiirada gaashaandhigga, diinta iyo awqaafta iyo agaasimaha madaxtooyada. waxaa sidoo kale qorshahan qayb ka ah xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin hore oo xilal ka soo waayay Koonfur Galbeed sida gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. dhammaan shakhsiyaadkaasi oo uu Laftagareen xitaa u diiday inay cag dhigtaan deegaanada Koonfur Galbeed intii doorashada baarlamaanka Soomaaliya lagu guda jiray ayaa hadda iyaguna doonaya inay markooda ka argutaan oo ay meesha ka saaraan madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen.
ujeedada ugu weyn ee ay labada dhinac isku hayaan ayaa marka laga soo tago siyaasadda heer federaal ee uu madaxweyne Laftagareen ku fashilmay waxaa ku xigta arrinta doorashada koonfur galbeed oo ah tan ugu dambaysa ee dhinacyadu ay isku beegsan doonaan. madaxweynaha koonfur galbeed ayaa doonaya inaan lagu soo faragelin siyaasadda deegaankiisa oo looga dambeeyo doorashada koonfur galbeed xilliga ay dhacayso iyo sida loo qabanayaba, halka ay dowladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse doonayso inay iyadu ku tala lahaato oo ay hormuud u noqoto doorashada koonfur galbeed loogana dambeeyo wasaaradda arrimaha gudaha ee uu hogaamiyo Axmed Macalin Fiqi, arrintaa oo soo dadejin karta xakinta xiriirka uu Laftagareen la leeyahay fila Soomaaliya. xukuumadda Somaliland ayaa la sheegay inay dil u qorshaysay madaxda xisbiyada mucaaradka ah inta ay ku guda jiraan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne Biixi. warar xogogaal ah ayaa inoo xaqiijiyay in qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada xukuumadda uu waqtigeedu sii dhammaanayo ee Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in kulan ay ku yeesheen wasaaradda warfaafinta halkaasi oo ay ku karkariyeen shirqoollo kala duwan oo halis ah oo ay la beegsanayaan mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooda maalinka Khamiista ee ay Somaliland martigelinayso dibadbaxyada salmiga ah ee ay mucaaradku dhigayaan. kulankan ayaa la sheegay inuu ka dhashay cabasho ay madaxweyne Biixi iyo taliyaasha ciidanka qaarkood ay ka muujiyeen warbaahinta kala duwan ee madaxa bannaan iyo baraha bulshada, taasi oo ay dhibsadeen wararka ka dhanka ah ee lagu faafinayo isla markaana ay garwaaqsadeen in lagaga adkaaday oo ay duufaanta mucaaradku tahay mid xoog badan oo aan la loodin karin dhanka warbaahinta. kulanka ayaa lagu maleegay shirqoollo ka dhana mucaaradka waxaana ka qayb galay sida ay noo xaqiijiyeen ila xogogaal ah wasiirka warfaafinta Somaliland, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta iyo xubno kale. goobjoogayaal ka qayb galay kulankaasi oo ka gaabsaday in magacooda warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in lagaga wada hadlay sidii mudaharaadka salmiga ah ee ay abaabulayaan mucaaradka loo carqaladayn lahaa, waxaana la isla qaatay in shaqaalaha dowladda qaarkood iyo kooxo kale lagu daro inay ka qayb galaan mudaharaadka isla markaana ay rabshado sameeyaan, iyo in la sameeyo koox gaar ah oo duuba muuqaalada muujinaya ficilada foosha xun ee la qorsheeyay ee ay ku kacayaan kooxahaasi ay xukuumaddu qorsheynayso inay ku dhex darsato dadka mudaharaadaya ee mucaaradka taageersan. kadibna waxaa lagu ballamay in la baahiyo oo lagu sumcad dilo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee Ucud iyo Wadani ee dibadbaxa salmiga ah dhigaya berrito oo Khamiisa. waxay doonaysaa xukuumaddu inay si weyn u dhaawacdo dibadbaxa ay dhigayaan xisbiyada mucaaradka ee Ucud iyo Wadani kadib markii ay u ogolaatay in ay dibadbaxa dhigi karaan. mucaaradka Somaliland ayaa ka war helay dhawaq aan u wanaagsanayn oo ka soo yeeray xukuumadda madaxweyne Biixi kadib kulan dhexmaray xisbiyada mucaaradka iyo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. markii uu kulanku soo dhamaaday oo ay mucaaradku warbaahinta la hadleen sheegeenna in wasiirku u ogolaaday dibadbixi, ayuu wasiirku soo saaray war kale oo mucaaradku ay ka hor yimaadeen kadib markii uu sheegay in halka dibadbaxa lagu dhigayo ay tahay oo kaliya xarumaha xisbiyada mucaaradka, taasi oo ay sheegeen mucaaradku inaanay dibadbax noqon karin balse ay isu bedeli karto kulamo siyaasadeed oo xafiisyada xisbiyada lagu dhigayo, taasna aanay caqligal ahayn.